dhegaystayaasheenna qiimaha iyo qaayaha lahow halka aad naga dhegaysanaysaan waa Radio 1 Soomaaliya oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha dhererkeedu uu kala yahay AM 1540 iyo mawjada kale oo dhererkeedu uu yahay 91.9 FM iyo abka Jin Radio. waxaa barnaamijyadan idiin soo gudbinaya anigoo ah Muuse Kuulow, Xuseen Nuur Xaaji iyo Yaasiin Abikar. waxaan idin leenahay habeen wanaagsan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaad kusoo dhawaataan Radio 1 Soomaaliya oo si toos ugala socotaan mawjadaha nambarkoodu yahay 15:40 AM iyo 91.9 oo FM ka. caawa waxaa halkan nala jooga alfanaan Cumar Saciid Cumar oo ku magac dheer Omar oo qaaday heestii Barbar oo ay daawadeen ilaa iyo in ka badan 3 milyan oo Soomaali ah ama mataqaana isku darkooda caalamka inta ku nool. barbarkayga midig waxaa fadhiya walaalkay Qaasin Muuse wuxuu iga fadhiyaa dhinaca bidix. Omar oo arkaysa asna wuxuu fadhiyaa dhinaca midig. marka waxaan hadda rabaa inaan u gudbiyo Muuse intaan isku soo noqon doono marka duwal Muuse. ما شاء الله dhegaystayaasheenna qiimaha qaaylo halkaad naga dhegaysanaysaan waa Radio 1 Soomaaliya. waxaan idin leenahay mar labaad galab wanaagsan, habeen wanaagsan, subax wanaagsan meel allaale meesha aad caalamka naga daawanaysaan, hadday noqoto Soomaaliya, hadday noqoto Australia, hadday noqoto meel kastoo aad caalamka ka joogtaan. waxaan idin leenahay dadweynaha naga daawanaya Facebooka galab wanaagsan, habeen wanaagsan, maqrib wanaagsan. waxaad inooga barateen maalin walba sabti ah saacadu markay tahay 6 maqribnimo inaad si toos ah nooga daawataan ama aad nooga dhagaysataan Facebooka iyo idaacadeena AM 1540 ama 91.9 FM sida uu idin sheegay Yaasiin Abikar. waa anigoo Muuse Kuulow ah. Cumar Saciid Cumar oo aad runtii u taqaanaan Omar, ayaan Yuusuf Cumar oo dhankaas fadhida, Suuban Cabdullaahi Maxamuud Faytaan iyo Dr. Qaasin Xirsi Faarax iyo runtii soo saaraheena maanta waa ninkii aad ugu barateen Xuseen Nuur Xaaji. waxaan idin leenahay mar labaad galab wanaagsan. bal marka hore aan soo dhaweeyay intaan barnaamijyada u guda gelin, bal aan soo dhaweeyay yarkii dhalinyarada ah laga daba dhacay. runtii aad arkaysaan, aad meel walba aad caalamka hadda joogtaan aad ka daawanaysaan lag ama runtii aad soo saaraysaan loof. bal aan soo dhaweeyo Omar oo aad runtii magaciisa uu yahay Cumar Saciid Cumar. bal habeen wanaagsan, galab wanaagsan, ku soo dhawow Radio 1. waa dhawahay aad iyo aad baad mahadsantihiin. dhammaan Soomaali Maxamed meel kastoo aad joogtaan waad mahadsantihiin. waan dhawahay. ما شاء الله. waxaan ku wareejinayaa saaxiibkay, bal soo dhawow. waan soo dhawahay Muuse iyo dhammaan asxaabta kale oo dhan aad baad mahadsantiin. ما شاء الله. bal aan ku celiyo dhegaystayaal haddaad su'aal qabtaan waxaad naga soo tiigsan kartaan telefoonka nambarkiisu 416 eber 1540. haddana waxaan rabaa inaan hees ku saabsan heestii uu soo qaaday walaalkay Omar aan u gudbiyo stuudiyaha. No one knows the secret. waxaad markale si toos nogula soo xiriiri kartaan telefoonka nambarkiisu yahay 87 eber 1540 ama 647 eber 7 61 dadka Facebook naga daawanayna kulay wixii ay fikrada qabaan halkaas inagu soo gudbin karaan. haddana waxaan idin gudbinayaa Xuseen go ahead.
waa tahay yaasiin waad mahadsan tahay dhegaystayaal markale ku soo dhawaada radio 1 Soomaaliya dabcan qodobada dhegaystayaashu fikradoodu ay ka dhiiban karaan waxaa kamida madaxda xisbiga wadajir oo xorriyadooda dib u helay kadib markii ay xireen ciidanka dawladda maanta haddaba dhegaysta sidee u aragtaa arrinkaasi sidoo kale qodobka dhegaystayaashu aan filayo inay aad u xiiseynayaan waxa uu yahay waxaa marti ku ah idaacadda fanaanka qaaday heesta barbar ee dadkii oo dhan ay barbar isku tuureen Cumar Saciid Cumar oo Omar ku magac dheer oo si toos ah dabcan ugu jawaabi doona su'aalihiina dhinaca Facebook sidoo kale telefonka oo idaacadda Yaasiin Wiikir uu idin sheegay laftiisu waa soo tiigsan kartaan haddii rabbi ka raali noqdo lafteena su'aalo ayaan weydiin doonaa oo ku saabsan heestiisa barbar oo ay daawadeen in ka badan 3 milyan iyadoo heestu ay tahay mid cusub markana waxaad ku soo dhawaataan warka kadib ayaan isku soo laaban doonaa haddii rabbi ka raali noqdo waxaanu soo gaarnay xilligii laga soo gudbin jirnay war wixii dalka dibadda naga soo gaaray qodobada warkayga maanta ugu door koroon waxaa ka mid ah taliya ku-xigeenka ciidanka asluubta oo ka warbixiyey maxbuus ku dhintay xabsiga dhexe magaalada muqdisho ciidanka nabad sugidda oo maanta muddo kooban hayay guddoomiyaha xisbiga wadajir guddoomiyaha degmada Baraaba oo ka warbixiyey xaaladda guud ee degmada ciidanka amniga gobolka Bari oo howlgallo lagu sugay amniga ka fuliyey deegaanada gobolka Bari qodobadaasi qodobo kale maanta waxaad si toos uga dhegeysan doontaan Radio 1 Soomaaliya taliya ku-xigeenka ciidanka asluubta Generaal Cabdikariin Cali Faarax ayaa maanta waxa uu ka warbixiyey sababihii uu geeriyooday mid ka mid ah maxaabiista ku jirtay xabsiga dhexe magaalada Muqdisho waxaana uu sheegay inay timid geeridaasi kadib kolkii ay dagaalameen maxbuus kale oo ku xirnaa xabsigaasi ayagoo ciyaaraya kubad hadalkiisana waxaa ka mid ahaa ciyaartii waa dhamaatay ninkii ciyaarta ku jiray oo labada marba ninku dulmiyey baa wuxuu yidhi nabara igu yaala meel bay xanuunaysa okay waxay u tegey heenkii joogay markaas ee caafimaadka iyo taliyihii xabsiga wax weynidii kama muuqan ninka 12 saac iyo bar ilaa maqribka iyo inta u dhaxayda waxaa dhacday in maxaabiistii ay soo garaacdo albaabka qolkii uu ku xiraa ninkaasi iyo maxaabiista kale qayladii iyo garaaci haddii la maqlay taliyaha xabsigu xaadir buu ahaa wuxuu amray albaabka in la furo la garaacayo in la fiiriyo oo waxa ka jira meesha la ogaado maxaabiista waxay sheegeen inay dhex yaal marxuum xasan maxamuud xasan cali ayaa marxuumka la oran jiray magaciisa 22 jir buu ahaa 2 buu ku xiraa 8 sano ku xukunaa 7 sano dhamaystay hal sano u dhimanaa Allah u naxariisto isla markaas anaga sida sharcigu qabo waxaan u qaadnay miiskiisii CID faktar baan u keenay guddiinay wixii waa soo xaqiijinay ninkii maxbuuska ahaay baalkii ahaay maxbuuska ahaay dhibaataduna ka timidna gacantaan ku haynaa dadka noocaas oo kale ujiidiyaha u ah oo wax dila halkii lagu xiri jiray buu ku xiran yahay kaasi waxa uu ahaa Generaal Cabdikariin Cali Afrax taliya ku-xigeenka ciidanka asluubta ciidamada nabad sugidda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta hotel Maka Al-Mukarram ee magaalada Muqdisho ku weeraray guddoomiyaha xisbiga wadajir Kamaal Daahir Xasan ciidamadaasi ayaa mas'uulka ku qaaday gaari ay wateen dhowr daqiiqo kadibna waa ay soo sii daayeen guddoomiyaha xisbiga wadajir oo kolkii la sii daayay warbaahinta la hadlay hadaladiisa waxaa ka mid ahaa maantay abaarihii labadii iyo barkii duhurnimo aniga iyo xogayaha guud ee xisbiga wadajir mudane Sayd Cali Macalin Cabdulle oo joogna hotel Maka Al-Mukarrama oo xilli qado ay tahay oo runtii aan la fadhino niman siyaasiyiin iyo xildhibaano runtii aan la qadaynayna xildhibaano aqalka golaha shacabka ka tirsan ayaa waxaana soo weeraray hotelka ciidamo afduuban oo sida la sheegay ka tirsan hay-adda nabad sugidda iyo amniga qaranka ee loo yaqaano NISA waxaa watay sarkaal ka tirsan hay-adda oo madax u ahaa oo la yidhaahdo Farxaan Maxamuud Qaroole sarkaalka ka tirsanaa wuxuu ka tirsan yahay saraakiishii maalintii hore shirki saxafi ee aan qabanay aniga iyo xogayaha aan dacweyne ayuu ka mid yahay sida la sheegay sarkaalka waxaa telefoonka ugu jiray saraakiishii kale oo runtii asagana aan la dacweynay uu ka mid yahay Saadaq Cumar Xasan Saadaq John oo ah taliyaha gobolka Banaadir NISA iyo jaamac iyo ragii kale oo ay laftooda aan dacweynay oo ay ka tirsan yihiin xafiiska madaxweynaha mudane Fahad Yaasiin iyo ragii kale oo markii horeba oon soo amarnay oo dacwadii aan ka geeyno maxkamadda xilligii ay soo galeen runtii anagu waa iska qadaynaynay
wax abaabul siyaasadeeda iyo wax aan ku jirnay midna maysan jirin meeshii annagoo qadaynayna ayaa waxaa soo galay ilaa 30 askari oo ka tirsan ciidamada afduubka ah ciidamadii markay soo galeen waxay nagu wada qabteen waxay hansab gareeyeen waxay yidhaahdeen mobayladiina dhiga waxay yidhahdeen isma dhaqaaji kartiin waxay yidhaahdeen cid dhaqaaqi karta ma lahan dadkii oo dhan mobaylo dhulka hal dhigay yidhaahdeen dee si argagax leh ayay runtii nagu soo galeen sida muuqata wuxuu ahaa weerar iska sharci darro ah weeraradii hore oo 17 December uu dhacay ayuu la mid ahaa run ahaantiina wax marqaati dee qof walba u joogay ilaa 30 qofood ilaa dadkii hotel ku jiro dhan argagax ku dhacay ayay ahayd kadibna markay ku jireen ilaa 5 daqiiqo 7 daqiiqo markay hotel ku dhex jireen oo meel walba baareen ayay waxay noo yimaadeen aniga xogayaha guud markaasay waxayna yidhaahdeen labadaa nin aan ka baara teleefoonadeennii ayay qaateen kadibna wayna baareen anigaa waxaan weydiiyey maxaad nagu baaraysaa oo warqaddii sharcigii aad haysatay aawey kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha xisbiga wadajir kamaal daahir xasan gudoomiyaha degmada Baraawe aadan cumar madoowe oo la hadlay warbaahin ayaa ka warbixiyay xaaladda guud ay ku sugan tahay degmada isagoo ka hadlaya arrimahaasina hadaladiisa waxaa ka mid ahaa horta xaaladaha adduunka oo dhanba amniga ugu horeeya amniga degmada Baraawe maanta waxaan dhihi karnaa 100% waaye wax shida kama jiraan ciidamada amniga hadii ay xooga dalka iyo qolada AU-da amniga Afrika qof sida u yaqaan hawlahooda loo soo igmada ay haystaan walaal wax shida kama jira amniga haddii dhinaca horumarada degmada aan kaaga hadlano degmada waxaa laga mashaariic oo looga soo talagalay sida looga talagalay u socdaan walaal sida airportka iyo dekada hawlahooda hadda lagu guda jiro ay sii socdaan hadda waxaa soo xirtay toddobaadkan gudihiisa markab oo aada u weyn oo maraakiibtii 2013 ugu dambeysa markuu soo xirtay degmada Baraawe kii ugu horeeyana waxaa soo xirtay 22 bishan hadeerna ilaa hadeer hore ka socoto dhinaca dekada airportkana shaqadiisa waxna u socotaa walaal kaasi waxa uu gudoomiyaha degmada Baraawe aadan cumar madoobe ciidamada amniga ee gobolka Bari ayaa howlgalo waxay ka fudiyeen deegaanada ay ka kooban tahay gobolka Bari ayagoo halkaas ku soo qabtay hub aad u tiro badan Cornel Axmed Abshir oo la hadlay warbaahinta ayaa u xaqiijiyay in howlahaasi ay qabteen hadaladiisana waxaa kamid ahaa ciidamadu sida la socotaan muddooyinkan dambeba waxay ku jireen howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka magaalada Boosaaso hadda alaabtan aad u jeedaan aan soo bandhignay waxa soo qabtay ciidamada ammaanka alaabtan waxay ka kooban tahay bombooyinka gacanta laga tuuro iyo xabadaha motor 60 tiradoodu waxa weeye 14 xabo oo xabadaha motorka ah 3 xabo oo bombooyin oo kuwa gacanta laga tuuro waxaana laga soo qabtay baro la tuunsan yahay ama xogta la hayo ee wax u kaydsadaan ururka al-shabaab barahaas xagee ku yaaleen magaalada gudaheeda ama soo goobo ka baxsan waa goobo magaalada gudaheeda ka mid ah weey cid loo qabtay ma jirtaa wax cid ah oo loo qabtay ma jirto marka ciidanku isla barta laga soo qabanayo xabadaha kan iyo bombooyinkan wax cid ah oo meeshii loogu tagay ma aysan jirin laakiin insha Allah waa la soo qaban doonaa hadii kaasi waxa uu ahaa Cornel Axmed Abshir waxaa intaas nagu dhamaaday war wixii dalka dibadda naga soo gaaray haddana dib aan kugu celiyo Muuse iyo Xuseen waa tahay Yaasiin Abikar aad ayuu u mahadsan yahay oo warka inoo akhrinayay isla markaana soo saaray weli waxaad nagala socotaan Radio 1 Soomaaliya dhageystayaashu fikradooda iyo su'aalahooda waan soo weydiin karaan Cumar Saciid Cumar Fanaan Omar oo barbar qaaday ayaa markaa stuudiyaha nagula sugan su'aalo ayaan weydiin doonaa hadduu rabbi ka raali noqdo markana mar kale aan sii maal dhageystayaasha u sii gudbinay heesta barbar
maasha allah ayaan leenahay runtii heestaas aad maqlaysaan caaw waxaa nala jooga dhegeysta habeen wanaagsan dhegeysta habeen wanaagsan mana maqashaa waa ku maqlaa si fiican habeen wanaagsan dhegeysta habeen wanaagsan kuno waa cabdullaahi wool waaye cabdullaahi wool waxaa nala jooga caaw fanaankii weynaa cumar saciid cumar heestii laga daba dhacay ee barbar ayaa jacayl ii tuuray marka heestaas weli ma maqasha adiga nin odayo waxaa tahay dhowr iyo 6 jir waa ku ogahaye taas baana maqlay heesihii hore aqaana aniga heesihii hore caawa waxaa nala jooga fanaankaas runtii waxaa adduunka o dhan looga soo mahad celiya heestaas waa hees runtii ama mataqaanaa si weyn u taabato ummadda soomaaliyeed weliba hadda waxaa lagu tilmaamay in dalka mataqaanaa uu barbar u dhaco marka heestii jacaylkana ay barbar u tuurtay marka bal caawa maxaa nagu soo saadinaysaa noo sheegaysaa caawa waxaan rabay inaan ogeysiis u sheego soomaalida dhegeysanaysa oo halkan Canada iyo Mareykan iyo kulli meel kastoo ay joogaan in u sheego in lagu guuleystay muxuu ahay minimum wage increase in lagu guuleystay marka waxaan rabay inaan u sheego soomaalida in qofkii la siin waayo $14 ka yar qofkii la siiyo ama qofkii shaqada looga eriyo si sharci darro ah oo la yidhaahdo without just cause shaqada looga eriyo ama discrimination oo diintiisa lagu sameeyo ama abuse iyo harassment lagu sameeyo inuu la soo xiriiro Muuse Kuure iyo masaajidada imaamyadooda bin Walid Darul Hijra Abu Hurayra Abu Abbas Rawda kulli ay la soo xiriiraan waxaan ka qaadanaa kambarigii oo ku xadgudba sharciga la soo saaray tallaabo sharci aan ka qaadanaa waa gartay waxaan u maleynayaa Eray Dixon ayaa joogta ambulance waxbaan maqlayaa marka waxaan ku leenahay messagekaaga waa sii gudbin doonaa hadduu ilaahay ka raali noqdo marka fanaankana waa uu kaaga mahad celinaya hawsha hayso adna iga gaarkay hambaliyo waa mataqan eskiisana iisoo tuura kuusoo tuura facebooka gal insha allah anaa kuusoo tuura don't worry waaya mudane waaya abukato dhegeystayaasheena qiimaha iyo qayaal halkaad naga dhegeysanaysaan waa Radio 1 Soomaaliya waxaan idin leenahay mar labaad haddaad su-aal weydiinaysaan waa fanaankii yaraa ee laga daba dhacay runtii dad badan aan ogahay caawa oo daawanayo oo runtii haddii sajaanis u helin aysan runtii su-aal aysan soo weydiin karin qoraalkeeda ayay noo soo gudbin doonaan bal aan weydiiyo waxyaabaha runtii heestaanatood iyo bal sida maanta iyo markii waa alifay bal laftarkiisa warbixinta guud hana siiyey bal aan soo dhaweeyo bal Omar bal heestaan maxaa kugu dhaliyey maxay tahay maxay mireeda xambaarsan tahay hadda waxaad inoo sheegtay in jaraa'idiyadii kale ay ku tilmaameen Soomaaliya inay barbar u dhacday marka bal maxaa hadda nala qaybsanaysa ama dadweynaha ku dhageysanaya aad ku tilmaami kartaa inay Soomaaliya barbar u dhacday heestaanna barbar dad badan oo runtii aad aragtay Facebook soo galay oo annagaba ka mid nahay inaan istuurnay marka dad badan ay iswada tuureen bal maxaa ummadaasi ugu mahad celinaysaa heestaada iyo runtii maanta magaca iyo sharafta iyo karaamada runtii maanta aad ku leedahay bulshada Soomaaliyeed Muuse Kulow aad baa u mahadsan tahay Radio 1 aad bay u mahadsan yihiin iyo dhammaan asxaabta halkan fadhida heesta horta anigu ma alifin waxaa alifay heesta Mawlid Xasan Curjin abwaanigu qaaliya oo saaxiib nahay oo nin qosol badan oo comedian heestu waxay isugu jirtaa qosol heestu waxay isugu jirtaa qosol iyo jacayl marka dadku waxyaabaha cusub way jecel yihiin oo ka duwan wixii hore fanka Soomaaliya hal waddo ku socday muddadii u dambeysay marka siiqadan hadda erayadu ay gadaal isaga dhacayaan waxa ku soo daray abwaano cusub marka sidaas keentay inay dadku horta heestan ula dhacaan iyo iyadoo ay qosol iyo jacayl isugu jirta iyo actionkan challenge-ga ah ee barbar la isku tuurayo marka taasaa keentay inay dadku waa gartay marka dadka adiga laba kulaba barbar baa isu tuurtay markii heesta aad runtii aad qaadaysa ama aad sameynaysay laakiin dadweynihii kale bal maxaa ku dhaliyay mase waa runtii qof walba clip buu soo geliyay caalamka meel kastoo ka joogo nin walba barbar buu isu tuuray markaas waxa heestii viral sii noqotay marka dadkii runtii maxaa is leedahay waxay runtii gaarsiiyeen inay istuuraan bal waxa weeye horta waxaa lagu jiraa 2018 hadda caalamka westernka waxay soo saaraan heesahaas ay soo saaraan waxay kusoo daraan action sida daab oo kale oo ay dadku ka daba dhacaan oo ay ayaguna jilaan annaguna marka waxaanu hiigsanaynay caalamka cusub sidaa darteed baa waxaan ugu soo darnay action barbar kaasoo dhaliyay challenge-ga intan la eg
wax la qiyaasi kara maaha runtii horta waxbaad ku soo kordhisay soomaalida meediyahooda ama caalamka ama muusiga soomaalida ama muusiga afrika waxay doontaa ha noqoto markii qolooyin badan ee runtii si weyn u turjumay inaad wax ku soo zaa'idisay markii Bob Marley heesaha reegaga waxbuu ku soo zaa'idiyey runtii keenan laftirkiisa waa nin Soomaaliyeed waxbuu ku soo zaa'idiyey waqtigii ciyaaraha ay socdeen oo kale stand heesihiisii magaraysa marka adiga runtii waxaa noqotay after 10 years inaad runtii maadaama 2010kii uu isaga hees wax soo saaray ninkii labaad ee Soomaali muusigeeda meel fog gaarsiiyay ayaa taa runtii waana aaga mahadcelinayna runtii heestaasna bal aan hadartaan bal dadweynaha dad badan aan naga soo codsaday sidaan arkaayo oo heesta noo daaya leh waa tahay heesta barbar ayaad dhegeysanayseen dabcan uu qaaday cumar saciid cumar Omar oo dabcan stuudiyaha marti ku ah dhegeystayaal badan ayaa iyagana fikradahooda halkan ka dhiibanaya oo markaa fanaanka uga hambalyeynaya heesta dhegeystayaashu saciid cali wuxuu leeyahay Omar libax waad maasan tahay heestaadu dabcan weyna ruuxruuxday annagoo dhan saciid cali wuxuu leeyahay Omar weydiiya heesta Djibouti uu qaaday amaba uu ku amaanayo waa tahay dhegeystayaal badan ayaa halkan marka iyagana ka dhiibanaya Omar dabcan muuse su'aal badan ay ku weydiiyay oo ku saabsan heestan waxay ahayd hees dabcan ilaa iyo dad badan intay caqlayseen lafteeda aan ku jiro hees dabcan dadka dhan ay falcelintooda aad ay u sareysay dabcan website-yo xitaa qolyo ka hadla videoyada iyo muuqaalada aadka loo daawaday way ka hadleen waxay soo xigteen muuqaalkaaga sidoo kale waxay soo xigteen heestan liban jaamac liban studio oo soo saaray marka dadku ay falcelintan intaysan dadku falcelin ka dhiiban adigu markaa qaadaysa heestan ma kula ahayd in heer falcelintan dhan aad kala kulmi doonto heerka intaa leeg inay gaaraysa ilamay ahayn laakiin heestu inay fiican tahay waxaan ku tijaabinay dadka aan la noolnahay ee reer Toronto saaxiibaday madalaha la isugu yimaado dadku aad bay ula dhaceen marka waxa dadka kula jooga ka gadma ama la dhaca adduunyahana run ahaantii way la dhacayaan si wanaagsan sida darteed baan horta heesta usoo sii deynay waxaa jirtay hees ka horreysay oo aan rabnay inaan sii deyno marka tan baa waxaa isku raacay asxaabtaydii liban jaamac oo aan halkan uga mahadcelinayo oo ninka duubay ah heestan si wanaagsan iyo mawlid curjin oo ah abwaankii heestan sameeyey iyo saaxiibkii sandheere alfanaan zaag iyo alfanaan amore oo hadda halkan ila fadhiya si wanaagsan dhalinyaro badan oo asxaabtayda waxay isku raaceen heestan in la sii daayo sida darteed baa heestan usii deyno oo u horumarino waa tahay Omar sidoo kale dabcan markii dadku ka falcelinayeen adiga laftaada heesta markaa qaadaysay marna saasaad gadaal isku ridaysay mar derbiyaad ku dhacisay ma waxaad ula jeeday
barbar un inaad isku tuurto mise waad filinaysay in dadku ay sidaa isku tuurtay si ka daran isku duuri doonaan dabcan waad daawatay dhammaantood waxaa jirtay xitaa safaaradda maraykanka ee Djibouti shaqaalihii safaaradda oo xitaa diblomaasiyiinta maraykanka ay ku jiraan inay barbar isku tuurayeen dad aroos joog oo kale waxay noqotay heesta 2018 markay dhalatay January ilaa iyo hadda wax dadku ay hadal hayaan oo kaliya markaad istuuraysa wax ula jeedin dadku ay kugu daysadaan mise miraha heesto barbar un aad markaas adigana la ambaqaadaysay run ahaantii qofku markuu gudbinayo message waa inuu dareen ku gudbiyo anigu ismaan lahayn dadku ha istuuran saa isku tuurtay laakiin heestu siday u soo socoto bay waxay kula gelaysaa ayuu ii tuuray barbar si wanaagsan marka barbarkii marayay waa tahay baan istuura waa tahay Omar su'aalo badan ayay ka laaban wadaadada laftooda ay ka hadleen wadaadada kale ka hadleen laftooda heesta si fiican markii waxaad ka ogtaan ku weydiin doonaa laakiin khadka telefoonka ayaa lagu jiraa dhageyste soo dhawow magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso magacayga waxaa la yiraahdaa Yusuf Abikar Ali yo baby waxaan ka soo hadlayaa magaalada Toronto yo baby Soomaalidu halkan ku nool way taqaanaa Fnaan Omar ayaa nala jooga dabcan oo heesta barbar qaaday laga yaabo laftaadu inaad mar un barbar isku tuurtay marka maxaad nala wadaagi kartaa bal barnaamijka aad la socotay runtii aniga ka faa'iideysanayo fursadan qaaliga marka hore waxaan runtii maad iyo bogaadin u dirayaa dhammaan daadiyaasha radio 1 oo 12 sano ugu dambeeyay hawshii ay u qabteen ummadda Soomaaliyeed reer Toronto marka doonto haddaan taa inta ugu gudbo runtii farxad ayay ii tahay caawa inaan qadka u soo galo saaxiibkay marna walaalkay Omar oo runtii adduunka sida Muuse uu yiri kaynaan ayuu ahaa ninkii loogu dambeeyay when I got old hadda waxaan noogu soo xigo barbar runtii anigu waxaan ahaa dadkii ugu horeeyay heestaas la dhaco oo taageero oo istuuro oo ka shaqeeya maaragtay waa ku mahadsanyahay fanaanka yog baby aad baa u mahadsan tahay saaxiibkay qaali iyo marna walaalkay aan asxaab nahay aad iyo aad baa u mahadsan tahay lambarkaagana waa raadinayay hadda waxaan ka qoranayaa idaacadda si wanaagsan yobe dabcan wuxuu ku jiraa dadka bulshadan retrona aad ugu dadaalay oo waxyaabo badan la qabtay haday timaado dhanka tartamadii wax walba yobe dabcan Omar waa kaaga mahad celinayaa dabcan anagana waan kaaga mahad celinaynaa inaad dabcan telefoonka naga soo tiigsato su'aalo badan ayaan u hayay inaan weydiiyo Omar laakiin dhageystayaashu waxay rabaan iyaga inay su'aalaha weydiiyaan inaga maadaama fanaankii aan isagoo nool keenay ee halkan fadhiya waxaan rabnaa isaga iyo taageerayaashiisu inaan fursad isu siino yo baby haddii aad fikrad kale hayso kadibna su'aalo dhegeystayaashu na soo weydiiyeen ayaan weydiin lahaa ee fanaanka maya anigu fikrad kale ma hayo waxaan taageerayaa Omar waan ku faraxsanahay waxaan leeyahay walaalkay hawsha aad wado halkeedii ka sii wad adduunka hadda maanta qof walba meel kasta oo laga soo weydiiyaa Omar marka waxaan leenahay reer Toronto waxa u soo baxay icon waxaan soo dhaweyno aan ku faraxsanaano dagaalkaaga halkaa ka sii wad meesha uga baxay aniga waata iyo beewad maasan tahay wa alaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu Omar dabcan markay saacadu hal daqiiqo kadibna waxaan gali doonaa heesta haddana dadka badan soo codsanaya u saari doonaa kadib isku soo laaban doonaa laakiin laba su'aal halkan ayaan waxaan isku dayi doonaa inaan boobsiyo jacaylku waa cudur dhegeyso ku soo gala Facebook ama ku soo gasha midkay doontaba nin inagu noqon karaaye jacaylka waa cudur magaca ugu qoran waxa uu leeyahay ama ay leedahay assalaamu calaykum magacaygu waa Lucky marka waa gabar Lucky raali noqo waxay leedahay magacaygu waa Lucky waxaan weydiinayaa fanaanka heestan horey miyaa loo qaaday adig ka hor maya heestan horey looma qaadin waa tahay dabcan Lucky jawaabtu waa maya ay hore looma qaadin daaweeye maxamuud dhegeyso ku soo gala Facebook wuxuu leeyahay fanaanka waxaan leeyahay heeska dadkii dhaawacay ayay gaarsiisay magdhow ayaa lagaaga fadhiyaa heeskuse caymis ma gelisay oo magdhow ma dhiibaysaa haddiise dhibku uu bato armaad dacwad mutaysataa saaxiib caymiskaygu aniga waa Soomaali maxamed oo dhan meel kasta ay joogto baa ila bixinaysa wixii khasaare ah oo heestaas ka soo gaaray waa tahay waad naasanta Omar oo isku soo laaban doonaa आकाशवाणी टोरंटो